waxayna rabaa inaan taabto maanta horta gobolka Banaadir taariikhdiisa aad looga sheekeeyay kaliya waxaan soo qaadanaa 2008 gobolka waxaa loo dhisay council deegaan matala gobolka loo dhisay deegaankaas oo jira oo si sharci ah loo dhisay dowladii ka dambeeyay ayaa baabiyeen siyaasadana loo baabiyay inkastoo aan ku faraxsanahay laba madaxweyne oo iska dambeeyay Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh inay xoogaa gambadeen gobolka inay ku dhiirtaan meesha laga rabo in madaxweyne Farmaajo uu ku dhiirado gobolka horta inuu heliyo number 2 number 2 anaga xildhibaano golaha shacabka nahay saaxiibaana dad isqaanaan nahay deegaano kala duwan ka nimid interest guud oo Soomaaliya matalna kuwa gaarna waan quseeyaan marka waa doodi karnaa campaign aska sameey karnaa waa iska coday karnaa laakiin waxa la isku aflagaaday ama waxa la isku dhibsado habeeraatee ma jiraan meeshaan annaga gobolka Banaadir waxaan aaminsanahay haddii aqal sare ay noqoto iyo haddii ay golaha shacabka noqoto matalaad numberka ugu badan Soomaaliya inuu heli karo facts haddii data noqoto nooc kasta noqoto meelaha qaar aadi maayo laakiin waxaan aaminsanahay inay tahay magaalo Soomaaliyeed oo Soomaalidu ku dhan tahay oo hooya oo sharaf iyo karaamo ummadda Soomaaliyeed u haysa dadka deegaankan waxaan aaminsanahay inay yihiin dad nabadeed sida dhammaan dadka Soomaaliyeed bay yihiin horumar kasta oo magaalada gaartay waxaan aaminsanahay dadka Soomaaliyeed inay gaareen marka xildhibaanada dhibsanaya xalay waxaan maqlay markaan campaign sameeyay xildhibaano campaign kala ku jira marka horta gobolka Banaadir iyo reer hebel loo arkin hal loo arkin ay tahay magaalada Soomaaliyeed koow ay labo annaga markii aan campaign-kan bilaabayna laba option aan ku tashanno labada option waxay ahayd laba option oo nabadeed wax colaada iyo wax dhibaato ma jiro option wuxuu ahay inaan dhaqanka culimaadudiinka dhalinyarada haweenka ganacsatada siyaasiyiinta aan shir la galno kadibna aan ka tashanno si gaar u soo tashanno haddii xataa nagu saamaxdo inaan bilaawno shirar gaara mudaharaadyo nabadeed rabshada maaha nabadeedna oo aan ku muujinayna inaan bilaawno laakiin waxaan door bidnay inaan baarlamaanka Soomaaliya asxaabteena ay ka buuxdo inaan campaign ka sameeyno waxaan aaminsanahay maalinba waxaan kaloo aaminsanahay dad badan activist ah inay baarlamaanka ku jiraan oo aaminsan waxaan aaminsanahay waxaan idinka rabnaa waxa waaye gobolka Banaadir aniga waxaan ku raacsanahay xildhibaanada soo jeediyay 13 sano tirana siiyo waana cadeey kara sababta waa cadeey kara xildhibaanada salaada soo jeeda mana ku raacsanahay waxaan rabnaa inaan nala shaqaysiin garab nagu siisiin haddii waxyaabo la tabanaa jiraan oo ka wada hadli karnaa campaign-ka cidda aan ka sameeyno cod ka rabno waa idinka ka rabnaa xildhibaanada la jooga waxaan rajaynaa sida aad gobolada waqooyi garabka loo siiyay xildhibaanada ka soo jeeda inaad garab noo sii doontiin waliba si gaar ah waxaan ugu hambalyeynaa sida garabka loo siiyay xildhibaanada ka soo jeeda gobolada waqooyi dalka waxaan rajaynaa Banaadirna taas oo kale ay iman tahay wa salaamantii assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh